بسم الله الرحمن الرحيم كسو دhowaada mowduuceena maanta sidee la iskaga biyaa khajalaada ma tahay qof khajalaad badan ma raadinaysaa habka ugu fudud la iskaga biyo khajalaada lambar 1 noqo faduuli hadaa aad og tahay inaad tahay qof khajalaad badan ku dadaal saad faduuli noqon lahayd oo aad isku daydo inaad ogaato ama faahfaahin u raadiso wax kasto aad isleedahay waxa uu furo noqon karaa inaad wax ka ogaato dunida kugu xeeran inaad mar kasto xog iyo sharaxaad raadisaa waxay xoojinaysaa aqoontaada guud waxaana kor u qaadaysaa awoodda aad u leedahay inaad bulshada dhex gasho lambar 2 ha ka waaweynaa dadka kugu cusub la sheekaysato markaad joogto goobaha ay bulshadu isugu timaado ha ka baqanin inaad la sheekaysato dadka goobta jooga xitaa haddii ay yihiin dad markaasi ay iskugu kin horeyso ku dadaal inaad isbarataan waxoogaa sheeko guudna isdhaafsataan sidoo kale naftaada ku tababar inay ka hadli karto kulamada iyo goobaha la isugu yimaado xitaa haddii mararka qaarkood adigoo aan hore ugu soo diyaar garoobin lambar 3 raadi xogta mawduucyada xiisaha leh si aad u hesho wax xiiso leh oo aad dadka la wadaagto in qof aad imika uun isbarateen aad la sheekaysataa ceeb iyo culays midna ma aha laakiin waxa fool xun in mawduuca aad la wadaagaysaa noqdo mid aan xiiso lahayn taasoo ka bixinaysa inaad tahay ruux ka hooseeya mustawaha aad doonayso inaad bulshada ku aragto haddaad khajilaad isku ogtahay ku dadaal inaad akhlaaqda oo dhageysato wararka iyo macluumaadka ka hadlaya arrimaha markaas taagan iyo mawduucyada muhiimka ah ee bulshada ku dhex wareegaya taasi waxay ku suuro gelinaysaa inaad hesho arrin xiiso leh iyo xog muhiim ah oo aad qofka la wadaagto waxaana yareynaysaa khajilaadda aad ka qabto la xiriirka bulshada lambar 4 isxakameyn naftaada ku tababar inaad isxakameyn karto markastoo aad cid la hadlayso ama la doodayso cid aad isku cusubtihiin iska jir sakaatiga diidmada isku dhexdaadashada nafta u sheeg xaqiiqada ah inaanu jirin farqi dhinaca bini'aadamnimada ah oo idin dhexeeya adiga iyo ruuxan ama dadka ka hor taagan sidaad oo kalena ay ceeb iyo cisbe leeyihiin sidaa awgeed naftaada ku kalsoonow inta aad ku socoto jidka saxda ah cidna ha ka baqan lambar 5 dhis xirfadaada iyo aqoontaada xirfadaada hiwaayadaada iyo hawlaha aad ka shaqayso oo aad dhistaa waxay nafta ku beeraan kalsooni dheeraada sidoo kale hawlahaaga bulsho waxay kaa caawinayaan inaad ka gudubto teedka ama xuduudka adiga iyo dadka kale idin dhexeeya lambar 6 ceebaha aad isku ogtahay dabool haddii ay jirto arrin la xidhiidha dabeecadaada muuqaalkaaga guud ama arrin uun kale oo ay dadku kugu dhibsan karaan ama aad adigu aaminsan tahay inaad khajilaad ay kugu tahay xitaa haddii aanay kugu ahayn waxaad ku dadaashaa inaad ka takhalusto lambar 7 kalgacal muuji ku dadaal inaad bulshada kula macaamisho kalgacal iyo soo dhaweyn markastana tus inaad xasiloo tahay oo aanu culays kale oo nafsiga kugu furnayn taasi waxay fududeynaysaa inaanay dadka kugu cusub faham qaldan ka qaadan sidaa inaad kibir badan tahay waxaana kugu soo dhaweynaysaa bulshada kugu xeeran taasi waa dawo khajilaada ka tirtiri karta lambar 8 naftaada kalsooni ku qab niyad samaanta iyo rajada oo la wanaajistaa waxay ka mid yihiin arrimaha qofka ku beera kalsoonida nafta markasta xasuusnow inaad tahay qofka dadka kale waxyaabo badan la wadaaga waxyaabo badanna kaga xun waxyaabo badanna kaga wanaagsan qof leh waxyaabo wanaagsan oo cid kale aanay la wadaagin waayo qof kasta waa sidaas haddii aad nafta runtaas u sheegtana waxa xoogaysanaysa kalsoonida ay isku qabto